dhinaca kalena wararka ka imaanaya magaalada Buuhoodle oo goordhowna soo gaaray ayaa dagaalkaasi xaqiijinaya waxaana ay sheegeen in dagaalkaasi ay ku dhinteen dad gaaraya ilaa 10 ruux haddaba faahfaahinta nooga imaanaysa magaalada Buuhoodle waxa warka nooga soo diray wariyaha TV-ga halkaas uga soo warama Qadar Awil Ismaaciil dagaal xoogan oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa subaxnimadii hore ee saaka ka bilowday deegaanada Maygagle Hagoogane iyo nawaaxiga deegaanka Kalshaale oo dhammaantood hoostaga degmada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn dagaalkani oo ahaa kii ugu kululaa ama ugu adkaa ee abid ka dhaca deegaanadaasi ayaa dhex maray ciidamada Soomaaliland ee militariga ah ee halkaasi ku sugan iyo waliba ciidamo beeleedyo ka soo jeeda gobolka Cayn dagaalkani ayaa socday muddo ka badan waxaana dagaalkaasi la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dagaalka ayaa yimid kadib markii sida la sheegay ciidamada maamulka Soomaaliland ay ku sugan nawaaxiga deegaanka Kalshaale ay weerar ku soo qaadeen deegaanka Maygagle oo 35 kiiloomitir dhanka waqooyi ka xiga magaalada Buuhoodle oo halkaasi ku sugan yihiin ciidamo beeleedyo shacaba dagaalkani ayaa waxa ka dhashay walaw ay adag tahay in si rasmi ah loo ogaado tirsiga khasaaraha dagaalku dhaliyay dagaalkani ayaa waxa uu ahaa mid aan ku koobnayn deegaanka Maygagle hase ahaatee waxa uu saameyn ku yeeshay deegaanada Hagoogane iyo Wandalaalax kuwaasi oo ka dhacay dagaalkii ugu xumaa maraan booqday deegaanka Maygagle oo saaka uu ka bilowday dagaalkii ugu horeeyay ayaa isagu xilligaasi u muuqday mid degan dhinacyadii halkaasi isku dagaalayay midba gees ka fadhiyay mana jiran xilligaasi oo ku beegneed salaadkii casar xabad ka socotay deegaanka Maygagle deegaanka Hagoogane oo ahaa goobtii uu ka dhacay dagaalkii ugu xooga badnaa ee maanta dhacay ayaa waxa halkaasi ka dhacay khasaare lixaad leh oo soo kala gaaray labada dhinac deegaanka Hagoogane ayaa dagaalku istaagay caawa abaara 6 iyo barkii maghribnimo kadib markii dagaalka uu gobolku ka dhacay labadii dhinac ee isdirirayay dagaalkani oo geystay khasaare xoogan oo soo kala gaaray labada dhinac ee halkaasi ku diriray ayaa haddana waxa adag in si rasmi ah loo ogaado tirada khasaaraha uu geystay dagaalku kadib markii ay gali kari waayeen goobaha qaarkood kooxaha caafimaadku dhakhtarka dhexe ee magaalada Buuhoodle ayaa waxa la soo gaarsiiyay meydadka 8 ruux oo shacab ah kuwaasi oo ku dhintay dagaalka iyo dhaawaca 7 kale oo kamid ahaa shacabkii halkaasi kula galay dagaalka ciidamada militariga ah ee maamulka Soomaaliland sidoo warbaahinta u saxiixay Dr. Awil Cabdi Hiirad oo kamid ah saraakiisha caafimaadka ee gobolka Cayn bismillaahir rahmaanir rahiim dagaaladaas waxa dhawcoodii ilaa imka hayna 7 geeriduna waa 8 min waxa ka soo raacay xagga Maygagle iyo Wandalaalax dhinaca maamulka Soomaaliland ayaan la xaqiijin karin inta uu dhan yahay khasaaraha soo gaaray maadaama dagaalka uu gobol dhacsaday hase ahaatee waxa jira 3 askari oo ku dhintay deegaanka Maygagle oo dagaalku markiisii hore ka bilowday waxa xusid mudan in badiba meydadka dadka shacabka ah ee la soo gaarsiiyay dhakhtarka Buuhoodle ay yihiin dad lagu laayay taayirka taangiga iyo beebaha sida ku cad sawirka shashada ka muuqda oo ay warbaahinta u soo bandhigeen saraakiisha caafimaadka deegaanka Hagoogane ayaa waxa la sheegayaa inuu caawayaalo meydadka qaar ka tirsan askarta Soomaaliland iyo waliba meydadka qaar kamid ah shacabka halkaasi dagaalka kula galay ciidamada Soomaaliland oo aan ilaa hadda cid u gelin marka la isku soo wada duubo dagaalkani maanta ka qarxay deegaanadaasi ayaa ahaa kii ugu xumaa ee abid ka dhaca halkaasi waxaana dagaalkani uu muuqdaa mid aan istaagaynin iyadoo la saadaalinayo inuu maalinta bariya iyo maalmaha ka dambeeyaba uu halkaasi ka sii socdo ma jirto wax waan oo halkaasi laga wado mana muuqato qaab looga hortagi karo dhibintan ka badan oo halkaasi ka dhaca arinta dagaalkani ayaa markii hore ku bilaabatay dagaal beeleed dhex maray beelo ood wadaag ah oo isku khilaafay lahaanshiyaha dhul daaqsimeed halkaasi ku yaala hase ahaatee arinta ayaa isbedeshay kadib markii ciidamada Soomaaliland ayagu galeen dagaalkaasi waxa ayna xilligani xaaladu tahay mid ka qoto dheer dhul daaqsimeed isla markaasina aysan muuqan saan nabadeed Qadar Awil